Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dunidan aynu ku noolnahay waxaa ka jira dadyow qaliino xagga jidhka isku sameeya. Kuwaasoo doonaya inay u eekaadan kolba waxay jecel yihiin. Doonista caanimada ayaa dadka ku riixda ficilo aad u daran taasoo Gabi ahaanba noloshooda oo dhan saameyn weyn ku yeelata. Qofka oo jirkiisa bedela waxaa kaga baxa lacag badan. Kaliya ta kuma koobna lacag balse waxaa jira dhibaatooyin caafimaad taasoo qofka ku sababi karta xanuuno fara badan. Ugu dambeynna uu qofku ku dhiman karo muddo kooban gudaheed. Haddaba halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa dadyow naftooda u bedelay balaastiga macaag oo aan moodeen inay dadkan yihiin bini'aadam kuwaasoo dhammaantood iska bedelay muuqaalka Alle subxaanahu wa tacaala ku abuuray. Sahar Tabar waa gabadh dhalatay dalka Iiraan. Sahar waa 19 jir waana gabadh caan ka noqotay Instagram-ka 2017 kadib markii ay sawir soo post gareysay. Sahar waxay gashay konton qaliin si ay u eekaato aktarada Jolie. Aktaradaas oo aad u taageeri jirtay inkastoo ay dadku baryahan qaataan qaliino si ay u eekaadaan dadka caanka ah. Laakiin Sahar qalinkeedii kadib dadkii Instagram-keeda ku xunaa way garan waayeen. Halka qaar ay kaga lahaayeen ayaad u eekaatay. Dadka qaarna waxay lahaayeen waa Photoshop kadib markii la ogaaday inay run sheegayso. Qaliinadu siday u bedeleen Sahar waxaa laga yaabay culeyskeedii waxa uu noqday 40 kiilo taasoo aan u fiicnayn dharka iyo daada ay jirto. Sahar Tabar Kelso waa Brazilian 20 jir waxaana uu bilaabay isbedelkiisa markii uu ahaa 16 jir. Sidoo kale waxa uu bilaabay tartanka fashionka isla daada 16. Waxa uu fashionka ku soo bandhigi jiray meelaha VIP-da ah. Waxa uu ka qaadan jiray 10,000 pound oo lacagta Ingiriiska ah. Kelso waxa uu sheegay inay waalidkiisa ku oran jireen caruusada ayaad u eegtay taasoo ku dhiirigelisay inuu isku ekaysiyo qof caruusada. Waxa uu galay 4 qaliin oo sanka iyo laabta. Waxa uu laabta isaga shubay darar la yiraahdo silicone si ay laabtiisu weynaato. Waxa uu isku dayay inuu caruusad la yiraahdo Barbie oo ay saaxiibadeed lahayd u eekaado. Kelso waxa uu dhintay 2015 laakiin intuu noolaa waxa uu isku dayay jiray inuu muuqaalkiisa u eekaado sida caruusada Barbie oo kale. Jolie waa gabadh u dhalatay dalka Ingiriiska. Waxay gabadhan xayeysiisaa dharka waxayna ka gaadhay horumar oo waxay ka qayb gashay TV X Factor 2010. Qaliino badan ayaa ay qaadatay sida dibnaha oo la waaweynayo iyo qaliino isu xiga oo sanka. Kadib qalinkeedii labaad ee sanka ayaa ay ka heshay dhanka Instagram-ka dhakhtar kala soo xiriiray oo joogay waddanka Ukraine. Gabadhan waxaa ka tagay awoodda urinta waxaana ku adkaatay inay si fiican u neebsato. Waxay 2 cisho ku dhex suuxday kitchenka gurigeeda. Waxay sheegtay inay maran sida waad dhimanaysaa oo inanteedii u qortay fariin macasalaameyn ah. Jolie waxay la nooshahay xaalad caafimaad darro oo aad u liidata. Kelly waa gabadh xayeysiisa dharka oo heer sare ka gaadhay. Gabadhan waxa weynaa sankeeda intii aanay muuqaalkeeda bedelin. Kaliya waxay qaadatay qalin sanka ah oo natiijo ahaan Kelly sankeedii waxa isku bedelay san weyn oo caag ah oo la moodo inuu dareere ka buuxo iyo wax carjo eeg inuu sankeeda ku yaalo. Sanad kadib dhakhtarkii markii hore qalinka ku sameeyay ayaa ku yiri bilaash ayaan kugu hagaajiyo. Laakiin waa uu ka sii daray Kelly way ka tagtay shaqadeedii sababo la xiriira caafimaadkeeda oo sii xumaanayay. Marcio Galdi oo isku sheegay inuu yahay caruuskii koowaad ee ka horreeyay Calcio. Marcio waxa uu sheegay inuu qaatay 15 qaliin oo kaliya noloshiisa oo dhan. Qaliinadaasi way ka mid yihiin 4 qaliin oo sanka ah oo uu baruus kaga saarayo. Qaliino qamcaha iyo laabta ayaa uu sidoo kale galay. 2016 Marcio waxa uu ka soo horjeestay talooyinka dhakhaatiirtiisa waxaana uu iska saaray 2 ka mid ah feedhihiisa si ay dhexdiisu u noqoto mid dhuuban. Gabadhani waxay ka caban jirtay dibnaheeda oo ay sheegtay inay yar yihiin. Sanadkii 2015 bishii February waxay gashay qalin dibnaha si ay u bedesho dibnaheeda una waaweynayso. Hase haatee si sax ah uma dhicin qalinkii kadib markii lagu muday daawo aanay ogeyn inay allergy ku ahayd.
dibnaheedii 3 jibaar ayay aad u waaweynaadeen. Inkastoo ay dhib kala soo kulantay, haddana waxay rabtay inay qalin kala gasho si ay dibnaheedu u sii waaweynaadaan. Valeria waa gabadh u dhalatay dalka Ukraine. Valeria oo iska dhigtay caruusada Berbia, oo ay dadku caruusada ugu yeedhaan caruusada bini'aadamka, maadaama ay dad badan isku ekeysiyaan caruusada Berbia. Valeria waxay gashay qaliino kala duwan si ay u ekaato caruusada Berbia. Gabadhan ayaa sidoo kale tiri ma isticmaalo makeup, taasoo ay ugu wacan tahay inuu ekaato Berbia. Waxay iska saartay mid ka mid ah feedhaha si ay u yeelato dhax dhuuban. Chingy waa gabadh 19 jir ah oo dadka qaliinku samayn jirtay iyadoo wax tareerina amba tababara oo xaga qaliinka ah samayn. Waxay bilowday inay hayso qaliinkeeda. Macmiil doonaya in wajiga loo dhuubo ayaa u tagay. Kadib Chingy ayaa qaliinkii gurigeeda ku dhex samaysay. Kadib macmiilkii waxa ku dhacay infection, taasoo ay sababtay in qaliinka aanay u samayn sidii saxda ahayd. Ugu dambeyntiina waa la xidhay sanadku markuu ahaa 2017. Justin waxa uu dhashay dalka Mareykanka, da'diisuna waa 39 sano. Justin waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee iska dhigay caruusad. Waxa uu ahaa taajir. Waxa uu galay qaliino gaadhaya 300 oo qaliin. Waxa kaga baxay lacag gaadhaysa $100,000, taasoo uu doonayo inuu ugu ekaado caruusada Berbia. Waxaa qaliinadan faraha badan ay ku sababeen jidhkiisa caabuq inuu haleelo. Rodrigo waxa uu qalay 17 qaliin oo lacagtoodu gaadhayso $883,000. Qaliinkii 6aad ee sankiisa waxay natiijo u noqotay inuu neefsan kari waayo oo sanka dalool ka soo baxa uu qurmo. Qacmaha uu qalin sidoo kale iskaga sameeyay ayaa iyagana waxa kaga dhacay faalig kadib markii dareere lagu shubay si ay murqo u yeeshaan. haddaba daawade fadlan subscribe saar kanaalka haddii aad ku cusub tahay oo riix jaraska isla markaana ka mid noqo asxaabta ku xidhan kanaalka si ay kuu soo gaadhaan barnaamijyada waxtarka leh ee aan idiin soo gudbin doonaa hadduu eebbaydmo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.